السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. maanta waxaan hagaajinaynaa nafaqo yar oo timaha ah. 3 xabo ukun aan ka sameynaynaa. 3 ukun aan soo jijibinaynaa weelkan ku soo shubaynaa kadib isku soo laabaneynaa. 3 xabo ukunta waxaan ku daraynaa xig yar oo malab ah iyo subag. Subaga nooca haysatid ari ama lo inta sida ku darsan halkii week adee hal mar sameeyay. jijibka faraha badan iyo daadashada faraha badan ee ka yareeyay. then halkii week 2 goor amal la sameeyay. ukunta nafaqo badan ay leedahay timaha ka daadinayda nafaqadu ku badisay timaha eber ay noqonayaan ka ilaali laakiin 2 week kadib ama hal week oo ku sameysan kartaa natiijada ka aragtida commentiga hoos igu soo reeb tijaabi. hadda malab yaran ku darnay subag aan ku dareynaa. then after that 1 hour meel dhigi kadib soo qaadanay hadana waa marsani 1 hour isku haynay kadib waa iska dhaqi marka dhaqdid shampoo